שלום, אני אזיר תודה לממשלתי ישראל בנימין נתניהו. wuxuu ka soo jeedaa Somaliland wuxuu ku hadlayaa afka Yahuudda isagoo sheegayo inuu afkooda ugu mahadcelinayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo si la mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo shacabka Israa'iil dhammaantooda aad u mahadsan yahay ayuu leeyahay si la mid ah wuxuu xusayaa in Somaliland iyo Israa'iil uu ka dhaxayn doono xiriir qoto dheer kaasoo sababi doono inay ka shaqeeyaan danaha labada dhinac danaha labada shacab Somaliland iyo Israa'iil wuxuu sheegay in Israa'iil iyo Somaliland ay yihiin dadka iskugu dhow muuqaalo kale oo baraha bulshada ku faafay ayay reer Somaliland ku sheegayaan in dadka ugu dhow isla markaana ay yihiin walaalahooda kaga sokeeyo dadka Yahuudda waxay sheegeen in islaamka oo idil ay ka doorsanayaan Yahuudda kuwaas oo yihiin kuwii ictiraafay isla markaana qirsan in Somaliland ay tahay dal madax bannaan isla markaana ka madax bannaan Soomaaliya reer Somaliland dhowr mar waxay sheegeen iyagoo muuqaalo kala duwan ama hadalaha oo baraha bulshada ay marsiyay ku cadeeyeen in asalkoodaba ay galaan reer bani Israa'iil isla markaana ay yihiin Yahuud marka dib loo raaco taariikhdooda Somaliland waxay sheegeen iyagu inay ka soo jeedaan reer bani Israa'iil waxay kaloo cadeyseen inay yihiin dadka ka soo jeeda Israa'iil imaka talada ku haya ee jooga Benjamin Netanyahu iyo faracaas inay iyagu laftirkoodaba ay galaan reer Somaliland waxay sheegeen inay garab taagan yihiin Israa'iil iyaguna ay garab ka helayaan markaan walaalahooda dhabta ah ee Yahuudda Israa'iil kuwaasoo garab ku siin doono sidii ay u noqon lahaayeen waddan ka madax bannaan ee dowladda Soomaaliya dowladda Somaliland oo hogaamiyo Cabdiraxmaan Cirro ayaa mar qudha laga war helay iyadoo qadka taleefanka video call lagu siiyay ictiraaf kaasoo Benjamin Netanyahu isagoo la hadlaya madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro uu sheegay in hadda kadib Somaliland uu la dhaqmi doono sidii waddan madax bannaan haddaba muuqaalkan yarka ku hadlaya afka Yahuudda wuxuu hadalkiisa ku sii daray in Somaliland iyo Israa'iil ay ka shaqeyn doonaan xiriirada ay ka mid yihiin amniga dhaqaalaha xasiloonida iyo wixii dan u ah labada bulshadood ee Yahuudda iyo Somaliland